dambi baaraha gabadha waxa uu sheegayaa in kiisku dhankeeda u badan yahay maadaamay ayadu ahayd xaaskiisa markaa qolka lagu dhex dilna uu ahaa qolka ee lamaanaha ku hooyan lahaayeen. Waxa uuna u sheegayaa in aysan waxba ka qarin waa haddii ay doonayso in uusan raad soo galin. Jatiliya dafa uu kasoo tegayaa gabadha waxa uuna codsanayaa in loo keeno fiidiyowadii laga duubay arooska habeenka dhacayay ee lagu fiirsiin iyo Rada. Waxa uuna waqtigiisa oo dhan ku bixinayaa daawashada fiidiyowada habeenka la duubay oo dhan. Waxa uuna ka helayaa caddeemo waaweyn. Jatil oo caddeemaha gacanta ku haysta waxaa sidoo kale soo baxaya caddeemo kale oo ah in taleefanka lagu fiirsiin aanba laga helin wax farihiisa ah habeenka oo dhan. Waxaa raad ku soo noqonaya wiilka uu adeerku yahay Ragu Fiirsiin oo yiri habeenkii waxa i soo wacay adeerkay Ragu Fiirsiin si aan asiga degdeg aan ugu imaado. Isla markaa Jatiliya dafa waxa uu ogaanayaa in faraha laga helay taleefanka uu ahaa Rada. Waxa uuna sidaa ku ogaanayaa in Rada iyo wiilka Ragu Fiirsiin adeerku yahay uu xiriir qarsoodi ah uu ka dhexeeyay. Jatiliya dafa oo aad u cariisan ayuu gabadha u imaanaya waxa uuna leeyahay hor ayaan kuugu sheegay haddii aad wax iga qariso in aad adigu khatar ku gali karto. Waxa ayna u sheegaysaa wax walba waxayna leedahay waa sax anigii wiilkaas xiriir waa naga dhexeeyay habeen walbana Google Live ayaan samayn jirnay arooska ka hor, laakiin asiga waa i qiyaamayo waxa uu hadda u doonan yahay gabadha uu dhalay wasiirka. Maya ay leedahay dilaagu aniga maahan ee adigu soo saar. Jatiliya dafa waxa uu furayaa feel hore oo ah xaaskii hore Ragu Fiirsiin oo markaa ayada ku dhimatay shil gaari ayada iyo darawalkeeda xili ay kasoo noqonaysay guri ugu yaala beerta oo markaa una siina tago Ragu Fiirsiin xiliyada qaar. Jatiliya dafa uu soo baxaya waxa uu soo aadayaa guriga ku yaala beerta si uu halkaa caddeemo kale ugu helo oo kiiskan ku xiran. Waxa uu halkaa kusoo helayaa kaamirad waxa uuna ka arkayaa sawirada haweeney oo la jirdilay. Jatiliya dafa caddeemahaas ayuu soo qaadanayaa. Waxa uu sidoo kale fiidiyowadii arooska laga duubay ka dhex helayaa gabadha uu adeerku yahay Ragu Fiirsiin oo markaa Jatiliya dafa waxa uu caddaanayaa sawirada uu kusoo helay guriga qaaska ee beerta iyo gabadha uu adeerku yahay Ragu Fiirsiin inay isleeyihiin. Isla markaana waxa uu ogaanayaa in Ragu Fiirsiin uu gabadha adeerku yahay uu wada jiray halkaana uu geli jiray kuna la dhaqmi jiray tacaddi iyo fal anshax xumo ah. Waxaana u caddaanaysaa xilliga xaaskiisii hore ee halkaas booqanaysay ay kusoo aragtay asigoo kula dhaqmaya fal xun gabadh uu adeerku yahay. Soo laabadkiina lagu dilay wadada dhexdeeda kadib markuu ogaaday in xaaskiisa ay ogaatay dhaqamadiisa xun. Jatiliya dafa waxa uu ugu dambeyn kiiska ku soo xirayaa in dilaagu ay tahay gabadha uu adeerku ahaa Master Ragu Fiirsiin dilkana ay ugu geysatay maadaama uu tacaddi fal xun ku dhaqmi jiray gabadha uu adeerku yahay. Sidaas daraaddeed iyo il ay ka qabtay ee dilkaas uu ku geysatay asiga. Ugu dambeyn filimka halkaas ayuu kusoo dhamaanayaa. Haddii aad ku cusubtahay channelka subscribe saar, like, share, comment. See you, bye bye.